kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidha meel kasta oo dunida ka joogta waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diradda ku saari doonaa qodobo ay ka mid yihiin war naga soo gaaray gobolka Doolo gaar ahaan magaalada Wardhe ayaa tilmaamaya in dadkii dhawaan lagu xirxiray magaaladaasi ay dhibaato ku hayaan ciidamada liyu booliska ee dhawaan loo geeyay inay dadka walaalaha ee ku waxyeeloobay dagaaladaasi ay kala qabtaan yaraan 600 oo ruux oo xabsi ah ayaa la tilmaamayaa in dadkaasi ay jirdil ku hayaan ciidamada liyu booliska waxaana jira muuqaalo la wadaagay baraha bulshada kuwaasi oo dadka deegaanka ay aad ama guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ay aad ula yaabeen waad kaga bogan doontaan warbixinta naga soo gaaray gobolka Doolo dhanka kale maxaad kala socotaa maamulka Somaliland ayaa iibsaday dekada Saylac taasi oo lagu tilmaamayo in qorshahaasi gabi ahaanba laga qaranayo dadka shacabka ee ku dhaqan guud ahaanba maamulka Somaliland iyo Soomaaliyaba waa qodobada aad kaga bogan doontaan hadduu Rabbi idmo barnaamijka waxa igala qayb gali doona saaxiibkay oo inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Itoobiya waashide ayaan marka hore ku soo dhaweynaa kadibna waxaan gali doonaa xaaladihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood iyo qodobkaan idiin sheegnay ee ku saabsan dekada Saylac ee Itoobiya ay dhawaan la wareegi doonto ku soo dhawow balaashido waa dhawaay saaxiibe haddii aan ku horeyno bal gobolka Doolo iyo dowlad deegaanka Soomaalida maxaa ugu dambeeyay gobolka Doolo waxaa ka taagan dhibaato aad u ballaaran oo geysanayaan hay'adaha amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida ee waayadii ugu dambeeyay howlgallada ballaaran ka wada gobolkaasi si ay u kala qaadaan beeraha walaalaha dhawaan ku dagaalamay gobolka Doolo dowladda deegaanka Soomaalida ciidamo aad u tiro badan ayay geysay gobolkaasi ayadoo si maalinlaha iyo si habeenlaha ay ciidamadaasi ay guryahooda uga baxayaan dhalinyaro aad u daayar iyo oday dhaqameedka iyo guud ahaanba dadka deegaankaasi oo ciidamadu aad moodidba si cadowtinimo leh inay ula dhaqmayaan muuqaalo lagu baahiyo baraha bulshada ayaa muujinaya kuwa aad tacadiyo aad u badan ay geysanayaan hay'adaha amniga muuqaaladan la baahiyey ayaa ahaa in dhalinyaro aad u tiro badan goob inta la iskugu keenay oo dhammaantood indhaha iyo laba dullo loo xidhay oo bac madaxa loo geliyay haddana jirdil aad u ballaaran askar madaxa duuban oo madaxoodu qarsoon yahay oo kaamerada iska qaarinaya ay la dhacayaan marka muuqaalahaasi ayaa muuqaalo argagax oo dadka Soomaaliyeed si weyn u yaabay marka lagu dirayaa baa la yiri dhalinyaradan yar yar ka ee lagu jirdilayo gobolka Doolo maxay tahay marka sida wada ogsoonahay dowladda deegaanka Soomaalidu talaabo waxay qaadatay waqtigii dagaalkii labada beelood walaalaha ku dhaxmaray halkaasi ay ku dhinteen 12 qof ay ku dhinteen dadkana ay ku dhaawacmeen ay dowladda deegaanka Soomaaliya directionka ay qaadatay ayaa wuxuu ahaa inay awood ciidan u adeegsato dadkana la cabsi geliyo halkaasi waa ka maamulka dowladda deegaanka Soomaaliya ay saraakiisha u sareysay ciidanka iyo maamulka gobolka baageen iyo saraakiil la xilki laga qaaday marka arintaas ay dhacday waxa la soo xirxiray dad lagu sheegay ugu yaraan 600 oo qof oo tuulooyinka iyo magaalooyinka xuduudaha iyo baadiyaha reer miyiga iyo geeljiraha la soo qabanayay guud ahaan dadkaasi waxaa la isku keenay xabsi ku yaala magaalada Wardhe halkaas ayaa lagu ciqaabaya marka oo dadkaasi lagu xanuujinayay si ay mar dambe waxa soo dhicin dowladda deegaanka Soomaaliya ayaa hal baa la gudboonay dad waa la xidhxidhi karaa tuuna uu iman karaa laakiin jirdilka noocan ah ee bac madaxa la soo gelinay xusuus dadka waxay u gelinaysaa waqtiga TPLF oo dadkan la dhahay oon alif tahay dagaal baa lagu soo qabtay taageero ahaa iyo waxa soo bixinay dadkan lagu xasuuqay laakiin mid la yaab kale ayaa waxay tahay dadkan waxay dad walaalo islaay wayna ka heshin karaan dilkan waligu u dhici jiray mag baa la kala qaadan jiray waan wax si socodona wax dowladda deegaanka Soomaaliya ay cabsida ku joojinaysa ma ishan sarada Mustafa Jawaan way jirto dadkan way isdilayeen waligood xal beena la gaaray laakiin in dadkii la dhaho dadkii la soo qabtay waa la ciqaabaya wax loo ciqaabaya la garay hadda markay saraakiisha ama ciidamadu ay sameynayaan waxan dadkan maxay ku garaacayaan maxay dhahayaan xogta ay ka raadinayaan maxay si soo qof markii la ciqaabayo adduunka xeerka ciidamada ama xeerka wax fashil ee la dhaho in ruuxan xog laga ogaadaa ama ciqaabaha waa inaad xogteen aad tahay xog muhiim ah marka ruuxan ku siiyo hadhow adigu ku anfacaysa mustaqbalkaaga dambe ama aad sira badan iyo aad ku fashilinayso waxyaabo dalka ku soo socday aad kaga hortagayso laakiin nin dhalinyaro ah oo maanta bac madax u gashay oo jirdishay oo dhaawac gaarsiisay xogta aad ka raadinayso waad garaacaysaa waad dilaysaa xogta aad wadiin maxay tahay labada beelood maxay isku dagaalaan badii labada beelood baraag bay isku dagaalaan biyo isku dagaalaan ma taas xog noqona bilaadan loo dilaa waa khalataas totally waa inay dowladda deegaanka Soomaalidu ay arintaas ka daba tagto muuqaaladan ay daba gasho cidii ka dambaysan ay sharciga horkanto dhawaan waxaan ogayn dadkaasi inaysan haysanin wax ku filan oo raashina oo laga bixinayo xabsigaasi iyo waliba marakaneecoyin maadaama waxa la tilmaamay xilli barwaaqo lagu jiro oo kaneeco aad u far badan ba ay deegaanada ka jirto marka dadka waxa kala qaybsaday baa la yiri kaneeco iyo de raktir iyo de wax cuna habeenkii iyo maxaan ku dhahay cunno xumo marka dadkii wax loo keenayna ma ay jirto marka
arrintu inta un baan ku ogeyn laakiin tan kale ka daba timid waa mid ay ciidamadu la yimaadeen biya hamidan ciidamada la yimid Haye. waxaana moodaa dhaqankooda inay xiseen Haye. ciidamada liigu booliska isna wada ogsoonayba aas-aaskoodii ya khaldana aasaaskoodii baa khaldana Haye. tayadaa laga xumeeyey Haye. isbilinkaa laga xumeeyey Haye. directionkaa laga hadlayey hay waagi bolis waxaa lagu tababaray inaad laysaan dadkiina dadka shacabka ah dadka shacabka inaad xasuuqdaan Mhm. inaad bac madaxa u gerisaan Mhm. aad basbaas ku dartaan ruux marka indhaha kasoo dhacaan wax walba asagaa sheegaya wax uu hayay iyo wuxuuna hayninba asagaa sheegaysa ilaa wuxuu hataa isku fardaamin buu sheegaya marka ciidamadu dhaqanka u xuseen raggii waxaa samayn jiray ayaa gobolka loo diray marka waxaa la dhalinyaro cinqaabto dilee ruuxan bini-aadmiga aad umaadilayso aakhara u eriyey laakiin wax xog oo kaaga iman oo dowladnimada anfacaysa meeshan kuma jirto totally baraag baa lasku haystaa wax dhaafsiisan meesha ma yaalan ma jirto ninkan hadduu xanuunsado baraag biyaa isku dileen buu leeyahay Hey. baraag biya dowladda maxay baraag biya maxay soo kordhinaysaa Hey. bal waxay soo kordhinaysaa xog ay dowladda u taraysa noo sheeg Hey. nimankan argagixisan maaha oo haddii la xanuujinayo laleeyahay argagixisaa tiin hubbaad aasteen meel baad dhibaatada wadeen hadday tahay ama ay sira kale keenaya waxbay ahaan lahayd laakiin geerjiraad soo xidhay geerjiraad garaacaysaa maxaad qaban jirtay geel baan raaci jiray maxaad hebel ku dishay baraag biyaan ku dilay biyahay ugu cabayay geelay ugu oominayay hay waxaas bini-aadmi looma cinqaabo dowladda deeganka soomaalidu maxaan leeyahay mar kale waa inay sharciga hor keento waa inay saraakiisha waxa ka dambeeya sharciga hor keento muuqaaladaasi waa inay siday ku dhaceen la ogaado dadkan markaa in la fasaxo oo dee geel dhuraagii baa ka dhargay baa la yidhi arigi oo dadkan dadkii waxay ahaayeen reemiyiga ahaye xoolahoodu dayac tiranayay marka haatan sow ma habboonaan laguma habboonaan dadka in la fasaxo xoolahoodii kala raacdaan dadkan waa in la fasaxo waa inay xoolahooda kala raacdaan nin walba geeliisa hantidiisa waa inuu dhaqdo dadkan weba cayrooben ba already hadda Haye. sababtoo tahay nin waxaa laga yaabaa reer laba cunug lahaa uu midna geel la joogay midna uu reerkii iyo xoolihii nirgihiisii xariinayay inay labadiba lasoo afduubay Haye. geeli wuu dhaqaaqay xadku ka tallaabay reero kale u geeli saas ku baxsay reerkaa saas ku cayroobeen Haye. dowladda ma yadaa hantisanaysa omay wax hal oy dowladda mustafa ay u haysa dadkaasi mar labadaa bilood ilaa colaad kale unbay sii shiday mooyeen laba qabiil oo laga yaaba marka horeba inay isdhex geli karin ayaa geelo isdhex galay geeli ugu kala tagay dibna laskuma soo celinayo colaad horraa bilood nin beri markuu geeliisio dixda ka cabaya arko oo nin kalena wato ma u daynaya 5 xabood buu ku dhufan dowladdu colaad may sii shidaysaa mooyeen wax hal ah midaas anagu uma aragno waa inay dowladdu ay midaas wax ka bedesho dowladdu oo deegaanku oo dhaqameed buu leeyahay oo dhaqameed guud oo deegaanka jira oo ayaga meeshan loo diri karo xalka keeni karo beeraha su keeni kara labada beelood waxay leeyihiin oo dhaqameed bay leeyihiin oo dhaqameedkooda suman kara mag bay kala qaadan karaan wixii xoolaha la kala qaada la soo celin karaa laakiin labadii beelood baa la wada cinqaabaya hantidooda iyo xoolahooda la burburinaya dhawaan waxaan ogsoonay in baraaka aad tira badan la burburiyey magaalooyin qadiimi ah oo ugu yaraan 500 qof ay ku nool in la burburiyey waxaasoo khasaara maxay tahay faa'iidada dowladnimo gaani wax dowladda halkaasi kama jirto waxaana inay dowladdu waa inay ay qaadato mas-uuliyaddeeda iyo waajibaadkeeda iyo dowladnimadeeda iyo lahaanshaheeda dhulka hal deegaan oo dhisan oo hal ceel ama hal baraago biyaha ka dhisan tahay waxay lamid tahay nacfi usoo kordhay dadka halkaasi ku nool iyo horumar deegaanka kusoo kordhaysa laakiin baraag biyaha aastay iyo guri la dhisay baan dumiyey khasaare mooyin waxba maada soo kordhina baa leenahay marka madaxweynaha dowladda deeganka soomaalida waa inuu la xisaabtamo saraakiisha gobolkaas ka howlgala waad mahadsan tahay shiido qodobka labaad een u geli doono waxa weeyaan waxaa soo baxaya warar sheegaya in somaliland ay kaashgaraysanayso dekadii la odhan jiray zaylac waxa markii si la yidhahdana ethiopia uba dhow marka arrintaasi maxaa ka jira new arrintaas way jirtaa haye ethiopia sidaan wada ogsoona waayad u dambeysay waxay wada dhismo ciidan oo dhanka badda ah haye maynana u dhisaynin ayadoon waxba meel ka ogeyn haye ethiopia lahaansho iyo dhul bay isku ogeyn haye ciidankan badda loo dhisayn waxaa badaha ethiopia inuu ilaaliyo Haye. badaha ethiopia waa kuwe Haye. saylac baa lambar 1 ka ah haye badaha ethiopia waa gar waana la gatay Haye. muuse biixi baana gatay Haye. sababta u gatayna waxaa waaye muuse waqtigiisi baa dhamaaday Haye. cimrigiisi baa dhamaaday Haye. 90kiibu ku jira haye muuse maadaama cimrigiisi dhamaaday 90kiina ku jiro somalilandna uu ku fashilmay xorriyadna uu u keeni waayey iyo madax banaani midnimadeediina uu burburiyey waa dhaqaale urus buu ku jiraa haye dhaqaal urus ku jira Haye. ethiopia buu ka gadanaya ethiopia wuxuu leeyahay inigu dowlad awood laatiin hadhow haddaad ku doodaan waana laga gaday baddan yaa naga gaday maamulkii somaliland baa naga gaday madaxweynihii somaliland baa naga gaday Saxiixi baa yaala. saxiixi baa yaala hadda soo kenya iyo soomaaliya badaha soomaaliya mayna ku murmaynin soo kenya mayna ku doodayna siyaasiyiin soomaali ayaa badda naga gatay soo waraaqi iyo cadeymo mayna keensan soo lama dhihin baarlamaan soomaaliyeed meel ku ansixi ma jiro shacab soomaaliyeed population oo wax la weydiiyeyna ma jiro soo lama dhihin hadda ethiopia hadda waxay ku doodi doontaa weli Muuse. ethiopia kenya ka daran ethiopia markii lagu qabsaday labadan annaga iskale xabad bay sanka kaa geli dagaal halkaana waxaa ka dhici aan la maadin doonin Haye. oo badaha la isla geli doono haye oo naaqudayaasha hawada ay isku cuni doonaan biyaha salkooda Haye. ay ku dagaalami doonaan Haye. ayaa dhici doona Haye. taana muuse bixi ayaa qaadaya mas-uuliyaddaas
muuse lacag buu ku gadanayaa cimrigiisi baa dhamaaday inuu somaliland ka carur rabaa wuxuu rabaa inuu dhaqaala yar dhulka somaliland siisto maadaama uu ka baxayo uuna ku fashilmay inuu xorriyad keeno iyo inuu mideeyo somalilandna ay burburtay inta kasoo hadhayna ay hadda koonfurta u kala oratamayso muuse dhaqaalo ka urursanaya dalka dibadiisan ka degi doonaa hadhowna maxkamadda heeg baa la tadegi jiilka soo kacaya ayayna dhib u keeni doontaa jiilka soo kacaya iyo etoobiyaanka ayaguna ayaa halkaas ku qaban doona waana lagu dagaalami doona maalin maanta waxaa jira dad fara badan oo reer hargeysa oo reer somaliland u dhashay oo inoo soo diraya xogtan oo tilmaamaya in somaliland ay iibsatay oo weliba hal qof ma aha laba ma aha cadeymo fara badanna waa ay soo dirayaan marka reer somaliland de keligii ma ah oo siyaasiyiin fara badan baa jira asxaab mucaarad baa jira maxay u muuqataa marka arrintaas de arrintan waxay u muuqataa un mid guud ahaanba shacabkan lagu majar habaabin ama shacabkan dhibaato loogu keenayo haya muuse bix gaajo ma hayso haya hadda seylac u gato haya ethoobia inay ciidamo badeed tababarato ayadoon meella wax ku ogeyn kharash mayna isgeliyeen deema mayna u qaadateen ethoobia waxbay ogtahay horey waxaan ogeyn inay berbere sheer ku lahayd oo ay tiri berbere iyo waxaan isku xidhaynaa wajaale laami baan isku xidhaynaa oo halkaasoo ganacsigu halka ethoobia uga yimaado weli qorshahaas wuu socda weli laamiyada waa la dhisayaa waddooyinka way socdaan haddana seylac baa lagu darsaday dee ethoobia qabsada dhulkii soomaaliyeed shacabka waxaa la gudboon inay tallaabo qaadaan hadda ayay ka hortag leedahay maanta haddii laga hortago oo la mudaharada maleeshiyaad iyo jamhado la geeyay halkaas ethoobia uma suurtagelayso ethoobiyaanku waa fulay sidaan wada ogsoonnahay laakiin gantaallo waaweyn bay hawada ka tuuraan shacabka soomaaliyeed baana ka adag ethoobiana uma suurtagelayso dhaqaalo unba halkaas kaga baxaya mooyeen maalin maanta baa lagu dagaalami doonaa shida waad mahadsan tahay waxaan rabnaa barnaamijkeeni qeybihii dambe ayaynu soo gaadhnay xaaladda maxaa ugu dambeysay laascaanood xooga laascaanood ka dagaalamaya iyo somaliland iyadu maxay kula muuqdaan anow somaliland waxaad moodaa iyo laascaanood inay si weyn usii kala fogaanayaan haya shacabka SSC waxaad moodaa inay guulo waaweyn ka gaadheen haya somaliland mayna marnada islahayn maanta waxa maanta dhacay baa dhacay kowda luliya lagu xusayaa kowda luliya lagu xusay 26 July June baa lagu xusay waa gartay se July baa June baa lagu xusay gartay taariikhda iska keedaa tan waa kowda luliya tan waa kowda luliya marka labada bilood ayaa lagu kala xusay oo waqtiga waqooyi koonfurta xorriyadda kala qaateena marka gebi ahaan waxay cadaynaysaa in ay Somaliland meeshaas ay ka guureyso inta yar ee kaga hadhay askarta gooja cad ku jira waxay ka sabri la'ayeen meeshana ku ilma dhalayeen iyo ka sabri la'ayeen guryaha kaga dhisan haddii awoodaya maanta guryaha iyo dhaxayaga wax u fujiye oo sidii xaafadooda u geeyay way qaadan lahaayeen marka guryaha inta laga duumo sugaya muuse wax u hadhay male SSC way guuleysatay muusena waa jabay meeshana total waa lagu kala tegay shida qodobka ugu dambeeya waxaa jira baraha bulshada laisla dhex maraya in qubuuro lagu magacaabo Sheekh Nuur oo ku yaala u dhaxeeya ceelasha biyaha iyo ex control u dhaxeeya in qubuurahaasi la faganayo dawladdiina ay joogto gobolka Banaadir iyo maamulkiisina ay joogaan maxaad kala socotaa marka dadkaas 20 sano xabaalnaa ee amanka la soo fagayo maxay kula muuqataa arrintaas xogtaasi way soo gaartay hay aan horta xaqiiqo uma hayo inay tahay dadkan wax fadhanaya hay in ayagu dhibaatada wadaan in laga gardanay in ay hawlo kala wadaan xogtiisa ku soo gaadhay meeshan wuxuu ahaa meel uu nin inta Ilaahay naxariista uu bixiyay garta uu bixiyay dhul asagu bixiyay ayay ahayd marka waxaan kala garan lahayn dadkan fadhanaya ma dad laga gatay oo wadaadka dadkiisa ay ka gateen ba mise dawladda Soomaaliya barnaamijkan loo horseedo sharciyada islaamka waxa gashay qubuurahan dhulka hadda ayagu lahaayeen inaan wax dama laga duldusi karin oo ayagu ay leeyihiin laakiin hadduu meel wax ku dhisnaa qubuurahan gadaal laga keenay in qubuurahan la saaro taa culimadan u deyn aad iyo aad buu mahadsan yahay daawadayaal barnaamijkeeni faaqidaada inta ayaynu kusoo gunaanadaynaa inta aan dib dambe ugu kulmi doono mid ka mid lamid ah waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabad